waxaa kaloo iyaduna aad runtii niyad jab u ah dowlad awalba tabar hayn xurumahda dowladda dal shisheeye waardiyeeyaan dagaalada argagixisada kula jirto saaxiibo dalal kale ka yimi wiilashoodu ay xabadda shafka u dhigaan iyadii la rabay in la tabantaabiyo oo ay inay u adkaysato weerarada cadowga uga imaanaya inay u tamaraysato inay dalka argagixisada ka saarto inay u xoogaysato inay ka maaranto ajaa'ib ilaaliya amnigeeda iyo dalkeeda baad moodaa iyadoo qaangaarinba hadda in afartii qoriye la siiyeyna ay isugu dhiibayso wiilashii soomaaliyeed ay dowladda u ahayd waxaynu ka aragnay filinkan isagoo fool xun wixii ka dhacay jubbooyinka markii baraskaboni la weeraray oo la geeyey ciidan soomaaliyeed meel geeri go'an ah oo afarta beenijahaba ay ka jiraan shabaab haddana waa tana in mar kale ciidamadii burha kabo oo afarta dhinacba shabaab ka joogo lagu ururinayo tan weliba waxaa u dheer in qabaa'ilo la hubeynayo oo maleeshibeelad cusub dib loo bilaabayo marka intaasoo isbiirsatay iyo adduunkiiyo soomaaliya runtii aad uga soo niyad jabaya waxay ku beegan tahay runtii marxaladii ugu adkayd in la dhihi karo inaynu ku jirno tan iyo intii burburka dowladda soomaaliya dhacay aad baa umahadsan tahay wasiir waa kaga mahad celinaya si gaar ah waxaan rabaa marka inaan dul istaagno koonfur galbeed bay hadda xaaladdu runtii ugu daranta markii laga soo tago dalku inuu burbursan yahay doorashadiisii aysan gacanta ku jirin hal bil ay hartay muddo xileedkii dowladdan haddana xaaladda taagan waxaa ugu daran hadda xaaladda koonfur galbeed oo ay dhici kartaba xataa gacan ka hadal inay gaarto puntland ayadoo aragtida ay ka qabto maxay tahay xaalka hadda ka taagan koonfur galbeed waxaanu qabnaa puntland horta waxay qabtaa in koonfur galbeed mowqifka siyaasadeed ee qaadatay uu yahay kii sharciga ahaa in dowladda koonfur galbeed madaxdoodu go'aansadeen inay ku dhaqmaan dastuurkii soomaaliya ku heshiisay 2012 haddana ay gudagaleen inay doorashooyin ku qabsadaan siduu dhigayo dastuurka koonfur galbeed iyo dastuurkii soomaaliya ku heshiisay 2012 waxaan qabnaa inay ku socoto koonfur galbeed jidkii saxda ahaa in waxa ay ka shaqaynayaan tahay arrin dastuuriya in doorashooyin dalku galo oo dowlad goboleed kastaaba madaxdeeda doorato siduu dastuurkeedu qabo inay sax tahay waxaan qabnaa in la dulmayo waxaan qabnaa in loo xoog sheeganayo waxaan qabnaa in qorshe lagu burburinayo dowladnimada iyo federaalnimada barbilow looga dhigayo koonfur galbeed waxaan qabnaa in dhiigga soomaaliyeed ee la daadinayo laga baaqsan karo tahayna in laga baaqsado waxaan qabnaa waxa ay dowladda federaalka hadda ay ka shaqaynayso inay sharcinaysan ahayn saxna aysan hayn damiirka soomaalinimaduna waxuu diidaya inay tahay waxaanu soo dhaweynaynaa doorashada dastuuriga ah ee ay dowladda koonfur galbeed u madlan tahay waxaan rajaynaynaa in halkaa ay ka dhici doonto doorasho xor iyo xalaal ah waxaan rajaynaynaa halkaas inay kasoo bixi doonto dowladnimo si hana qaada oo dadka reer koonfur galbeed yeeshaan waxaan u rajaynaynaa dadka reer koonfur galbeed inay ilaaliyaan midnimadooda wadajirkooda inay ka baaqsadaan inuu ku yimaado burbur inay ka dhowrsanaadaan inay dib u galaan duruufihii adkaa ee hadda ka hor goboladaas soo maray waxaana muhiim ah in dadka siyaasiyiinta indhegaradka aqoon-yahanada dhammaantood ay ka shaqeeyaan tallaabo kasta oo dadkaasi runtii ay lagu hiigsan karo horumarkooda looga dhowrsan karayo colaad sokeeye laga ilaaliyo arrinta aadka u foosho xun oo ah in maleeshibeeleedyo aan cidna ka amal qaadan haddii kow lagu hubeynayo dowladda federaalka ay ka shaqaynayso inay burha kaba ku hubayso waxaasoo idin waxaan aaminsannahay inay tahay wax dowladnimadana dhaawac ku ah soomaalinimada ceeb ku ah rajabeelna ku ah ummadda soomaaliyeed
waxaan u rajaynaynaa dadkaas nabadii barwaaqo. waaya haddii hadda maantay waxay shaacisay guddiga doorashada koonfur galbeed waxay shaaciyeen jadwalkii doorashada markii laga soo tago xasan sheekh iyo hawshiisa koonfur galbeed la yimaado oo hadda waddadii saxda kusoo laabatay puntland doorasho la oran karo waxaa isku caanashubaya madaxweyne lafta gareen way u muuqataa hadda siduu wax ku wado oo aan u furnayn musharaxiintoo dhan oo keligiisa marka doorasho noocaasa laftigeeda see loo taageeri karaa puntland doorkeeda muxuu yahay taas annaga horta hadda cidda batrool garaynaysa amba boolisinka ka samaynaysa doorashooyinka dalka dhacaya ma nihin mandatekaas lama haysano laakiin dee duruufaha la eegaya dal hadda la cunuqabateeyey oo xildhibaanadii reer koonfur galbeed si qabiil ah loo beegsanayo aysan dhoofi karayn madaxdii soomaaliyeed ee golaha baarlamaanka ku jirtay amba siyaasiyiinta aysan koonfur galbeed geli karayn kuwa jooga aysan ka tegi karayn waxaa keliya soo gelaya inay yihiin diyaarad dhiilaysan oo qori iyo baasuuke dadka lagu dilayay saddex waxaas ahaan in dowladdii soomaaliya ka xadibtay de waxay la tahay wixii markaa meesha ka jirin baa dhacaya hadda dowlad waddan furan oo cid kastaaba tegi karto oo colaad lagu abuurin oo saasaan colaad ka jirin oo diyaaradda macdow baa saaran mise nin nabad wadaa saaran ma nin doorasho rabaa saaran mise nin qorisitaa saaran aan laga fakarayn de waa lagu eedeyn kari lahaa mataqaana war haddii ay dhacday in dad musharaxiin ahoo ka maqan baydhabo oo rabay inay imaadaan haddii la xanibo markaa dee eedda dowladda yeelan lahayd laakiin hadda meel duulaan lagu yahay garan kari maayo sida loogu eedeyn karayo mataqaanaa cid baa ka maqan doorashada qayb ka geli lahayd hadda kole siyaasiyiin waaweyn oo aan isleeyahay dacalay qabaa waa joogaan guddoomiyihii hore baarlamaanka mursal baa jooga aadan soorashoor isleeyahay dabac baa kursigaas kaga jira baa jooga kismaayo meesha noo baydhabo dee xildhibaanada hadda iyaga saaran mid iyagu ay dalbadeen maaha mid iyagu ay hadda maamulaanna maaha markaa dee eeddu waxay tegaysaa madaxda fiila soomaaliya oo abaabushay dhiilo colaadeed cunaqabataynna saartay koonfur galbeed bay eeddu fulaysaa moogiye dee iyagu doorashadooda dastuuriga hadday qabanayaan duruufahay markaa ku sugan yihiin bay ku dul qabanayaan bay la tahay waaya marka hadalkaas wuxuu noqonayaa doorasho walba oo ka dhacda baydhabo oo hadda ay qabato dowladda koonfur galbeed puntland waa aqoonsanaysaa waana soo dhaweynaysaa iyadoo duruufaha tixgelinaysa saas miyuu noqonayaa wasiir midaan waxaan isleenahay horta wixii ha dhacaan laakiin anugu waxaan rabnaa in doorasho dastuuri ahna ay dhacdo dalkaas wax xaqa u lahaayeen qabsadaan arrinta sharciyadda u leeyihiin sameeyaan waxaan rajayn doonaa inay daahfurnaan doonto doorasho lagu qano ay noqon doonto doorasho intii danaynaysaa ka qayb galayso baan rajaynaynaa inay meesha ka dhacdo waxaan rajaynaynaa doorasho qurux badan oo dadka soomaaliyeedna u riyaaqaan dadka reer koonfur galbeedna anfacda inay meesha ka soo baxdo waaya aan siiya marka dadka kale oo barnaamijka nagula jiraan rabaa inay su-aale ku weydiiyaan waa kugu soo laabanaya aniga su-aalahayga cabdalla baan ka bilaabaya cabdalla haye marka koowaad cabdifataax maxamed nuur waa ku salaamay aad baan kaa qaadanaal codka kaa gogo-aya kuma maqlo kolley haddii dadka lagu maqlayaan iskugu imaan karto xukuumadda meesha ka jirtana wayna ogsoonnaha waxay soo martay iyo waxay caqabada ahayd iyo cashan wax maanta dib loogu noqon karo ama dib looga faalloonayo maaha laakiin dan bulshada soomaaliyeed waxaa la rabaa inay fikiraan ayaka talintooda iyo mustaqbalka dalkan iyo dadka soomaaliyeed inay go'aan ka gaaraan 10 jeer baa waxaan ku dhahay bulshada in la helo gogol soomaaliyeed ummadda isugu timaado laga wada hadlo laga wada fariisto system institution cusubna lagu dhiso عشان واحد لو سوغا عشان 3 سنة حسن شيخ ما عندي كيسي بالكدي متى ما انت ان لا غارو معاهين سومالي مر bay kala tagtay 1991 haddana tiibay ku socotaa oo dalkan waxa haysto group oo waxay yihiin in ogsoonahay iyo aqoontooda in ogsoonahay kuwa baarlamaanka joogana waxa aqliyo talaa iyo ra'yi iyo bulshada Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed ama
ajenda siyaasadeed oo dalkan lagu hogaamiyey midna ma hayaan. marka waa in la helaa xal. haddaan xal la helinna dalku waa burburaa sina 1991 lagu kala noqonayaa. so marka in aan la gaarin heerkaas waxaa laga rabaa maamulada active-ka ah puntland jubbaland inay furaan gogol soomaaliyeed oo bulshada isku casumaan laga wada hadlo hoggaan siyaasadeed oo dalkan hogaaminaya iyo aayaha dalkanna iyo mustaqbalka bulshadana in la helo. marka wax kale oo isdul saaran meeshan ma jiraan. marka maalin walba waxa weeye inuu xasan sheekh intuu gobol state ku dhago oo cunaqabateyn saaro oo bulshadii baabi'iyo xanibaad bulshada saaro is very shameful. waxa laga xishoodo wax siistan ama dowladnimo ama qarannimo lagu matala maaha. waa mooryaannimo. dalkii iyo magaalada aan ku dhalana tigi la'nahay cabsi darteed عشان handadaada iyo taximsida la soo diray you can't believe that maalin walba qof walba oo hadlo oo yiraahdo warsaan bulshada kuma qurux badno dalka sinaha laga bedelo wax وين ogna waxa ka dhacayo waxa qabsanaya taas. marka waa ku soo celinaa jibriilow diftahna waa salaama inta meesha ku jirta bulshada dhan wa salaam calaykum qaaliniga aawla ku dhageysanaya way dhimale aad baa ma santahay Cabdallah wasiir Cabdallah xigmadda hadalkiisu waxa weeye Puntland ma qabanaysaa shirweyne dalka lagu badbaadinayo doorkaas ma qaadanaysaa oo dhawaan Cabdallah waa salaamaya mar kale waad la socotaan kulligiinba oo aan sare maaha markii golaha mustaqbalka Soomaaliyeed isugu yimid magaalada Muqdisho kala soo quusteen in madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya u diyaarsan yahay inuu dalkan u qabto doorasho la wada leeyahay loo wada dhan yahay oo ku dhacda xor iyo xalaal oo xilligeedii dastuuriga lagu qabto inuu ka soo indhacad yahay waxay ku ballameen in bisha April 10keeda magaalada Garowe lagu qabto madal Soomaaliyeed oo looga tashanayo aayaha ummadda Soomaaliyeed halkaan waxay ka soo bixi karayso inta uu sheegay Cabdallah iyo in ka sii fiicanba madashaas weli waa sideedii dadka Soomaaliyeedna waa rajeynaa inay dhawaan isugu yimaadaan waxaanan isleenahay in ay runtii halkaa ka soo dhalan doonto amba lagu corin doono hannaan siyaasadeed oo lagu xaqiijinayo dalkan in lagu geliyo doorasho laysla ogol yahay amba ummadda Soomaaliyeed inteeda badan ku heshiiso sidii dowladda Soomaaliyeed u dhisan lahayd aad baa ma santahay wasiir xildhibaan Cabdi Barre waa rabaa inaan soo dhaweeyo xildhibaan soo dhawow waa mahadsantahay Jibriil wasiir Cabditaahna xildhibaan aad baa ku salaamaya waa ku salaama wasiir muxuu ahaa Jibriil Qobi waa mahadsantahay saad markasta dadka isugu keentid oo howlaha u qabatid marka anigu hadal badan ma hayo laakiin waxaan la wasiirka waxaan weydiinayaa wasiir shirarkaas hadda socda iyo maaragtay waxa dalka ka socda waad ogtihiin haddii waxaasoo dhan socon waayaan Puntland maxaa u qorshaa marka maxaa yeelay waxa maanta dadka loo weerarayo oo idinka Puntland cunaqabataynta loo saaray oo Jubbaland loo weeraray oo koonfur galbeed loo weerarayo waa hal qodob saddexaad ma leh maxaad khaladka aan wado aad igu fahanteen oo aad ila qaadan weydeen oo dalka iyo dastuurka aan burburin noola qaadan weydeen maxaad sharcigiina u qaadan weydeen sharcigiina u doonateen marka qof sidaas ah miyayna ahayn in intaad u istaagtaan oo caalamka ku dacweysaan oo lagu dacweeyo ninkan maxkamad la soo saaro arrimahaas maad ka shaqaysaan wasiir haddii rabbi ma ka shaqaysaan waa idin soo cesho wasiir idin soo cesho wasiir soo dhawow xildhibaanka su'aashiisa waa maqlaysaa xildhibaanka aad baan u salaamayaa waana runtii xildhibaan kaalin firfircoon uga jira wacyigelinta bulshada iyo halganka dheer oo dowlad dhiska Soomaaliyeed